السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبيال مل والبو الدنيا كجوكتان وحان إذا الله يهي عويسين وناكسن مغرب وناكسن فيدنمو وناكسن صباح وناكسن مل والبو الجوكتان يسي والبو عاد إيد مغليسان marka ay maraysa xaaladda dalkan yaa leh iyo waxa hibooyinka ah ee ilaahay nagu manaystay qofna iskuma dayi karo dalkan cad yar xataa in uu ka iibsado ha noqdo farmaajo ha noqdo xasan sheekh ha noqdo sheekh shariif iyo madaxdii kale ee dhammaanba ka horreysay dhiigaagu markaad tahay wadani ama muwaadin waa in uu kacaa marka dhulkaaga la soo faragashto ama lagu soo xadgudbo damiirkaaguna waa inuu dhaqaaqaa marka carada diinta iyo dalka cidi soo faragashato ama xitaa la ogaado inaad ka dabacsan tahay dhankaas intaanan u gudagelin maxkamadda Hague go'aankeedii soo baxay iyo sida loo marin habaabiye shacabka waxaan rabaa horta inaan dareensiyo dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan shanta qaarada ee dunida sida aan ka rabo dhalinyarada inay noqoto sideen ka rabo dhalinyarada markii la yiraahdo kaftan iyo qabiil iyo baashaal iyo xaqiiq waa in la kala saaro waay markaan kaftameen annaga qabiil aan ku kaftanaa si kale aan ku kaftanaa siyaasad aan ku kaftanaa kursi aan ku kaftanaa نوع ربنا وكفتنا لكن مركا inside نهوا لكن outside مركا تاي ونقولنا مرنا هامين سياسي مرنا سياسي هامين أنا هتقول شيء جاي ولا هنقضوا كان يكي كوري يكوي كسي هوري مرنا political هامين أديك لكن واحد هامين تاني نفس الضاد يعود أدول له هاي إن أدل كاجا وحكسو كورنين كرت دل كان وحسو جيا دليرة نلمت أناجا kuwa naga dambeeya qiimo weyn inoo leh kuwa hadda jooga wax fahamsan garab weyn aan ka rabnaa kuwii horena waxay nooga tageen dhaxal wanaagsan oo aan maanta dabcan harsanayno oo dalad inoo ah qiimaha waddankaana waa inaan wax badan geliyo shalay waxaa loo dabaaldegayay 50 sano guuridii kasoo wareegato siyaad bare kasoo wareegatay markaad dal ka hadlaysid siyaad bare مسكا مركات كاليس الشخصية ديس هذا قدر كدودة معها سياد بر لكن وكسر دعي نبضي والدنيا ده أن كل هذين إنه كسر دعي سياد بر سياس درت لو إيران كيران أنا وحن هاي باش أنا وحن تين سياد بر قلب وكجلي لكن فكرة ده أنا ما أمن سني إن وقلب سياد بر غير جوني كجلي أنا ما أمن سنتها وأنا أمن سنة هاي personalitygiisa in ay wax ka qaldoomi karaan qof wanaagsan ma jiro qof sida ay rabaan Soomaali u sameey karana ma jiro laakiin anigu ku dhimaayo 100% nin haliyeeyo saani kida wa kida u ahay ma oran karo taas Allah subhanahu wa ta'ala inaga og laakiin dalkan waxaan hubaa kaliya qofba ishaaradiis ama aragtidiis meel bay ku go'an tahay anigu dabcan hadii Ethiopia iyo Kenya Nigeria USA Arab in hawaysan kirin intaas ay deeqdo aniga laakiin guriga hooyaday ka jibi aabaheeyo lug baawur ka qarxi adeerkay shaqo loo diiday waa qalad inside ah lama xisaabiyo laakiin hadaan mar Saudi Arabia Mareykan Iran Ethiopia aan aragtay maanta ee lafta garay wax ka dhistay ee Jubbaland laga celcelinay ee meel kasta taagan doorasho ah oo rabta in sirteena ay ogaato dalkan sida loo dhisaayo sirdoonkaaga Fahad Yaasin gudaha kula jirto laptopyada baasaweerada heesa nisay heesa blaze heesa military heesa kuwaas siyaad bare kuma soo dhiiran karin kuwaas siyaad bare wax uma meerin jirin kuwaas siyaad bare ma dhageysan jirin kuwaas siyaad bare farta uma yeeri jirin that's why siyaad bare uu yahay haliyay loo baahan yahay in kor loo qaado siyaad bare marna annaga qabiil dartiis inta yaray dabcan annaga ma aragtay inagu heebta ah waa laga yaabaa dad badan oo qalad ka galay taanu siyaad bar waxay la soo diray ma oranayo dad badan oo qalad ka galay laakiin dalkan wuxuu u qabtaa ka weyn hanka waxa ka weyn wax walba wuxuu dalkan u qabtaa ka weyn taas siyaad bar aan kaga taga dib aan kaga soo laaban doonaa maxkamadii Hague habeen baan
live soo galay haddaad xasuusataan warnimayo dalkan idinkaa iskale cidna ha ugu beer leexanin cidna ha ugu beer laxawsanin cidna waddada ha uga maaragtay ha uga beerin dhabaha aad ku socotid wadaniyadda ah cidna ha uga beerin qabiilku wuu baxayaa adiga waad baxaysaa laakiin dalkan ma baxaayo caradiisa ma baxayso biyahan ma baxayaan waana wax aan marna joog istaahilin oo aan gelin waay waxaan rabaa marka waxaan xodxodaystay waxaan xafiiska ra-iisul wasaaraha ka soo helay kii ra-iisul wasaare ku-xigeenka ka soo helay kii madaxweynaha ka soo helay kii saxaafadda ka soo helay siyaasiyiintii hore ka helay inaan isku dhufsado kadibna idinka idiin soo gudbiyo idinkan aad xukmisaan baddaas heerka rajada ay taagan tahay maanta wax ma laga qaban karaa wax ma istaahishaa ma siyaasad baa ku duugan ma doorashada dambaa ku xiran tii hore ma ku xirneed tii xasan sheekh maxamuud soo laabashadiisa badda kenya maxaad kala socotaa in wax uun ay kaga xirneed xasan sheekh doorashadiisa awalan kuu faahfaahinaa tan hadda soo socotane door noocee ah ayay kenya ka ciyaaraysaa doorashada rajo noocee ah ayuu madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ka leeyahay doorashada haddii uu kenya eega qabto doorashadiisa hamigiisa maxaa lagu sheekaystaa xafiiskiisa haddii kenya uu u daayo oo uu laaluush ka qaatase muxuu aaminsan maxayse aaminsan yihiin filla soomaaliya the questions waaye aan cabo raba inaan idin weydiiyo intaan su-aalahaas u guda gelin life baan habeen dhexdaas ah hadduu ilaahay kuu idmaayo soo galay oo waxaan ku yidhi warbadeenni ayay guddi loo xeer saaray ra-iisul wasaare ku-xigeenka mahdi guuleed uu madax u yahay heeg yimid madax kaloo kenyaanana ma socoto isagaa mas-uul ah isagaa taagan heeg dee muxuu soo doonay questionay ahayd waan ka wada hadalnay waan falanqoonnay wax badan baa isla meel dhignay wax badan baa waqti idin siiyey waxaan ku yidhi ninkaas hoosha uu u soo baxay cawada ceebta ugu weynaa waxay tahay muxuu usoo baxa nin ma dhihi karno baasabaro uu leeyahay mugta xor buu u yahay shakhsiyaddiisa laakiin in delegation wufuud soomaaliya ka socota heeg fadhiyeen wafdigii kenyana iska soo horjeedeen la shaacinin oo maxkamadda aysan u yeerin saxaafaddana lagu shaacin barahooda bulshada aysan ku sheegin safar noocaasa ummadda soomaaliyeed qiimo noocee u yeelan karaa taas waa su-aasha safar heerkaasi noocaasi ah muxuu kaga dhigan yahay dowladda soomaaliya iyo ummadda soomaaliyeed waxay soo carartaba intay iskentay gaala horta anigaa la nool intaasoo sano waxma qariyaan dowladda hadda dalka ka talisa hal dabeecada leedahay ummaday maanta iga dhagaysta wallaahi bilaahi hal dabeecad aan dhaqan dunida aanan ku arkina leedahay horta cabsida iyo in la biiqsado oo la waabsado dowladihii ka horeeyey kala mid bay tahay in la qaray ma fiicna mugta waxyaabaha yaabka marka inaad sheegta rabtid waa inaad dhabaha runta soo qaadaa dowlad aan la biiqsan oo aan la waabsan oo aan kuleeti lagu dhigin siyaad bara kadib ma jirto cabdullahi yuusufa inta looga dhignaa waxaa looga dhignaa inta sheekh shariifa inta looga dhignaa xasan sheekha inta looga dhignaa farmaajona waa looga dhigaya laakiin farmaajo dhigaashihiisa muxuu kaga duwan yahay waay farmaajo wuxuu kaga duwan yahay inta marka looga dhigaya wuxuu rabaa in inta looga dhiganaado shacabkana aysan arkin shacabkiina bara bulshay samayseen ay kutubey oo jowhar joogto ari raacayso ayaa maanta facebook haysato oo rebalaay kuusoo gelayso badda iib haddaad tiraa tijaabi rebalaay kuusoo geliy ay kutubey naagtaasaa joogto oo wiil yaroo ceelbuur jooga facebook haysta mid ceelleer jooga haysta mid gibileed jooga haysta waxba kama qarin kartid maxkamaddii warqaday soo saarta maanta waa ceebowday soomaaliya waa ceebowday maanta because of madaxdeeniya waxayba taagan yihiin ummadda yaa lala wadaaga wallaahi waa markii saddexaad aan maqlo madaxweynaha soomaaliya oo leh wax walba oo arrin lagala hadlo madax kale ay kala hadasho markuu leeyahay wuxuu taagan yahay shacabkayga soomaaliya yaa lala wadaagin maxaa ka mid ahayd dekedihii etoobiya oo u saxiixay shacabkayga lala wadaagin oo yaanan u sheegin uma sheegayo ku leeyahy maxkamadan hadda heeg darafti maxaa ku qornaa maxkamadda heeg maxaa ku qornaa maxkamadda heeg waxaa ku qorneed kadib markaan fiirnay labada draft ama labada dhinac waxaan aqbalnay dalabkoodii ahaa
in dib loo dhigo maxaa dib loo dhigaa kiiska badda oo laga dhigo next year kiiska badda kadib markaan aragna lahay labada dhinac dalabkooda according to the head of states haddana waxaa loo fiirinaa dalabka intuu ka imaaday madaxda Soomaaliya iyo Kenya anagoo fiirinayna la yiri labada dhinac dalabkooda maxkamadda way ku qoran tahay oo Ingiriis maxkamadda Cabdulshadeed ma soo saarin Cabdiraxmaan Cabdishakuur ma soo saarin Faarax Macalin Bakin ma fahad uusina lagama sameyn maxkamaddu waa wax sax ah baadri labada draft anagoo eegayna Soomaaliya ani waxba faa'iido iguma jirto hadda inaan warqadaas idin sharxo waa aragteen laakiin waxaan rabaa waxaan 3 sano u qeylin inaan mirahooda aragtaan markaad aragnay labada draft labada dhinac dalabkooda inagoo eegayna madaxda wadamadaasna maxkamaddu waxay dib u dhigtay go'aanka ilaa iyo sanadka dambe haddaba sidee maxkamad caalamiya dambi dib ugu dhigi kartaa ama kiis maxkamada dib loogu dhigi karaa waa in la helo dalab labada dhinac maxkamaddu shacabku waxaa rabaa inaa ogeysiiyo awood uma laha in ay go'aan ka gaarto both of sides inay go'aan ka gaarto labada dhinac go'aan kama gaari karto maxkamadda qofka ku yiraahdo go'aan ay ka gaarto dhinac kale asoo la dhageysanay waa ben maxkamaddu haddii lagu murmo waqti November 6 example ama November 7 maxkamaddu go'aan waxay ka gaari kartaa November 10 waqti dhow laakiin 1 year after that maxkamadda go'aankaas iyada malaha ee waa dalab la soo dhigto way dalabkan yaa ka soo shaqeeyay way dalabkan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa markii uu tagay shirkii United Nations New York waxa u sheegay Uhuru Kenyatta wuxuu u sheegay in dalabkan uu aqbalo waxaana ku cadaadiyay madaxweynaha Masar Azizi saxaafadda caalamkana soo bandhigtay waa garatay Soomaa waa ninkii Farmaajo ninkii yiri way aan aqbalay laakiin maadaama fiir wallahi inaan been sheegay qof islaam ah maadaama aan United Nations ka hor hadlayo horta wuxuu wada xaajoodkan Azizi iyo Uhuru Kenyatta ay wadataan gogashan aad keenteen waan aqbalayaa laakiin shirka United Nations in New York ayaan rabaa oo yiri inaan ka iraahdo badeena wada xaajood kama galin shacabba idaawanay nin ciyaal Facebook ku facaha way hadda dadka ciyaarsiinaya waa fiir dadkii wuxuu leeyahay kama korkorta been naagi ilmin ilay waa sax Farmaajo waa sax hadda maxaa yeeray Farmaajo saxiixina dib loo dhigo maxkamadda ma ku tahay Farmaajo saxiixay laakiin waa nin aqligiisa ku faca aqliga Farmaajo wuxuu ku facay dadkeega been u sheegay kadib ay idin heshiina way dad nin ka fikiray way war haddaad geesi haliyada dadka ka fikirin haddaad dadka dantiisa qabanayso looma baahnaba inaad dadka iska gedidba looma baahno ceebay kugu tahay madaxweyne ceeb bay kugu tahay maxaan kugu yeernaa maxaas okay ujeedka aan soo degdega marka waa wada akhristeen warqadan saameynta ay Soomaaliya dal noocaan oo 30 sano burbursan oo ciidan qaran oo difaaca badda aanan jirin saameyn wadan noocaas ay ku yeelan kartana dabcan waa odarsi kartaan dadkiina u dhuun daleela siyaasadda laakiin waxaan rabaa ujeedka madaxweynaha Soomaaliya horta in lagu aadiyo election time waa fikrad ka imaado way aan idin sheego taa waa lagu isbixiyay Farmaajo inkastoo uu aaminsan yahay in election kaba isaga dabcan 2 sano ku darsanayo inkastoo taasi loo fadhinin oo dhowr jeer Kismaayo laga dhawaajiyay inaysan suurtagal ahayn muddo kororsi extension inaan marna la aqbali doonin laakiin qaxweynta madaxweynaha shaahaysigiisa iyo loscunkiisa wuxuu yahay inuu soo laaban doono marka waxa rabaa Kenya horta waqti election ku darsatay taasna dawladda Soomaaliya dhinaceeda waxay ka imaan doontaa in dib loo dhigi doono codsi Soomaaliya ka imaan doono maadaama lagu mashquulsan yahay arrimahan waad ogeeyay waqtiyadii Soomaaliya iyo Somaliland kala fadhigoodii doorashada Xasan Sheekh ku soo aad dib ama loo dhigay tan of course like same way taasna way okay waxaan rabaa marka Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya haddaan dambi iska dhowro dad badan iga caroon doonaan dad badan aan warka qaar uusan farxad gelin I know laakiin muhiim ma in adigu farxad gelin runta waxay tahay in adigu ay ku dhibtaba Ilaahay subhanahu wa ta'ala taas u sameeyay runta beenta ina ka fogana muhiim madaxweynaha Soomaaliya wuxuu team Facebook u soo dhiibo calaamad madax u ahaa teamkaas waxay habeenii maal u taagnay in dadkii madaxdii Xasan Sheekh sharaf iyo karaamo korkiisa ahaato iyo Sheekh Shariif in la aflagaadeeyo
oo la caayo waa lacag qarashaadkii mid fil Soomaaliya oo maxaa lagu caynaa fiirsaya umaday adinka dhaxaad oo maxaa lagu caynaa Xasan Sheekh iyo Sheekh Shariif waxa lagu caynaa Kenya u sacabtumeen diyaarad Kenya raaceen intay tageen Axmed Madow u sacbiyeen haddaba Kenya maanta adiga u saxiixoy badda oo baddi aan annaga lahayn oo milkiyadeena dhaxalka eed oo awooyaashan ka tageen gorgortan gelinayo heshiis ummadda Soomaaliyeed aysan ogeyn saxiixoy adigu maxaan kugu tirana maqara dumis baa tahay matuug baa tahay Kenya u shaqeysta calooshu shaqeysta iyo Kenya u shaqeeya ma tahay maxaan anaga magaceen kugu yarnaa shalay Xasan Sheekh iyo Sheekh Shariif ay oo Kismaayo dhul Soomaaliyeed tago waxay ka beerayo madaxweyne boqoran Axmed Madow oo nin ogaadeen oo Soomaaliya dhalad ah garbaha ka taagnaa ayaa waxaad ku tiri qarad dumis ayaa tahay Axmed Madow oo tagta adiga Kenya adiga fiiri oo Kenyaatigi badda dib ugu dhigay heshiiskii oo lacag ku qaatay ujeedkana waa soo wadaay maxaan kugu tilmaami karnaa ciyaalkan maskaxda aad ka duufsateen ee Facebook ku jira ee $200 aad siisaan iyo $300 baahida iyo qaajada haysa ee haddii $200 ay waayaan laga yaabo inay ku biiraan dhinacyada isdiidan ee Soomaaliya oo aan $200 aad siisid sideen indhala'aanta ah ku taageera ila $200 nin fiir taageerada laga gatay waxba iima sharaxi karo nin taageerada laga iibsaday anigu waxba iima sharaxi karo $200 taageero lagu sii fil Soomaaliya Sheekh Shariif caaya Xasan Sheekh caaya Kenyaati la jireen cadawga Kenya haduu yahay maxaa adiga shacabka ugu qaris heshiiskii Kenya la gashay waxa muhiimada u soo galay halkan way hadii Kenya ay cadow ku tahay adiga maxaa dhaliyay in adiga heshiis ummadda Soomaaliyeed aan ogeyn aad u saxiixdo oo aad qosasho mahad guuleedo adiga ka socdo farmaajo maanta waxaan soo qoray badka macaashe mahad guuleed nimanay qaraabiin oo gabilay isagaliya gabilay horta fiir waxaan ilaabay ayaa waxeen niyo madax ku dhajin mahad guuleed bad macaashe ha ku gadinay wallahi rabin sheegin madaxweynaha Soomaaliya kiiskan shaqo ku leh farmaajo ku caayeen mahad guuleed ha ku caayin farmaajo ku caay waxa rabo markii inaan waxa igu daray tahay nimayahow wadaniyiin baa tihiin muwaadiniin baa tihiin qabiilka iska daa kaftanka aan ka tagno dhabta marka ka hadalno mahad guuleed baasaboor Itoobiya oo leeyahay go'aan ma ka gaari karaa aayaha Soomaaliya iyo badeeda barigeeda biyaheeda go'aan ka gaari karaa mahad guuleed waa nin Itoobiyana oo xeerarka kala duwan federaalka Itoobiya xubno weyn ka soo qabsaday ilaa 1999 maanta badda Soomaaliya naxariista uu kaga guleeyahay in uu walaalaha Soomaaliyeed uu u garaabo ama garab u noqdo mahad guuleed oo nin Itoobiyaan baasaboor Itoobiyaan wato adigu maxaad ka sugaysaa ishag mahad guuleed oo Itoobiya 20 sano u shaqeynaya Xasan Cali Kheyro diilan asal ayaan keensaday bari hadii Xasan Cali Kheyro xukuumaddiisa meesha ka baxday mahad guuleed magaciisa daa maqashaan gabadheeda guur ma gashaan kuna mahad guuleed magaciisa ma maqlaysaan Ethiopia back to Ethiopia aan halkaas oo shaqadiisana ka sii wadona wajika malaha sharafka malaha baddaas hadii la gabto magaci waxa loogu saaro wayna adaan ummadda Soomaaliya wajika laheen oo soo laaban doonin oo cara Soomaaliya rajo kale inuu nin Ethiopiana fiir nin kale ma la way taasna waa arin kale oo muhiim ah way waxyaalaha marka farmaajo of course farmaajo kala sameeyaa bad jaceelka hadaa la xaqirey ninka ragga ani waa igala sameeyaa laakiin duruuf baa ninka ragga duruuf baa ku kalifis kiiska in bad loo dhigo wallahi ma iga aaminaysiin haddaan ciwaan yar u soo koobo muhiimadda farmaajo uu ugu saxiix badda haddaan ciwaan yar soo koobo oo aan iraado ciwaankaas waa title u sameeyo waa wada qoslaysan laba arin ayaa ugu weyn waxa uu madaxweynaha Soomaaliya u ogolaada ama Kenya Berla House uu ugu sameeyo hatta kama jawaabi karo war diyaaradii Kenya ka soo kacday ee Shariif Sakiin iyo Cabdikariin Guuleed fashil man labada nin diyaaradii keentay maxay dawladda Soomaaliya jawaab uga bixi weysay Kenya waa laga cabsanaa faraha laga hayo sababta faraha looga hayo waa idin sheegi doonaa laakiin inta taas la gaarin madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu kaga golleeyahay umad yahay marqaati ka ahaada wuxuu kaga golleeyahay laba arin waa mid next election iga saacida oo dhaqaalahan doorashada iga anfacaysa campaign waalana ku gala kuma dambaabay taas labo dawlado badan ka saacidi kara campaign marbi asaga dawlad quwad loo gobolka ku taala inuu codaadsado farmaajo marbiyo sababo doorashadiisa ah darteed kana marka political analysis u hadalno way marbiyo farmaajo hadii uu election ka soo socdo rajale dawlad gobolka sida Kenya amal saameyn weyn leh inuu colaad ku sameesto marbiyo
وتاس بدل كده نبضو كقار الله هدي قرش نقطة هدي كلا صحيحة نقطة عالمي تاس مدحوينها الصومالي وهو أنتم مكرتا قلب كلبان أو تايتل أقول لك إن كي برلحوس اللي قصة ما بدينا واحد الأمور سيلا وبدينا وأحمد مدوبي إلى قربي بداسني أنا شيء سكجل منا أحمد مدوبي شلو الشيء بريو دمنا سير مفعص أحمد مدوبي شلو الشيء بريو دمنا أنا شلو الشيء بريو دمنا معناها فيرين وح نحلقة يوحجر وح دو أو أركت دوء نحرك هقول ديلين دلان هكذا نحرك مدحوين أحمد مدوبي عيلك أدو قبت ودمنا هاي أنا مركان نحاد وهذا أحمد مدوبي ما أنت إنك كنت دولي ويسو أو دتوبي أول ويسو أو دورشيس خشخشادي ويسو وحا أصوبه كيا أو قرب وينسيس سيدا عليه إتوبي قرب كوسيس عيب ما لا كان عيبها كجديد سيدا عليه إتوبيان كأي قرب كوسيان أو أد كل يسي دورشادي لفت قرن أو قرب كوسيان أي كيان وحي قرب كوسيان أحمد مدوبي عيب ما مركا سكيا مركا لوغا تلاوة قرب سينت أحمد مدوبي oo Ahmed Madow banaanka ugu soo dhaco barahira loo hubeeyo madaxweynaha Soomaaliya wuxuu ka doorbidi lahaa arintaas in badda Kenya uu kala heshiiyo saaxiib dhow uu ka dhigto Kenya maanta saaxiib dhow ma rabto Kenya baddaas ay rabtaa farmaajo imaw iyo uhuru imaw iyo farxiya imaada iyo ma rabto Kenya waxay rabtaa badda wax ku saabsan Ahmed Madow iyo Shamsi iyo Abdulqaadir Boos iyo Hebel iyo Facebook waxaas ma rabto dul iyo marad tan koowaad taas waa labo waxyaabaha waxaan rabaa inaan dhalinyarada u faa'iideeyo labaad ee dowladda Kenya ee ku handado ma taqaanaan dowladda farmaajo ee dowladda farmaajo kaliya madaxweynaha ma ahane ra'iisul wasaaraha kamid ah kan ku-xigeenkiisa kamid ah mahdi guulida kamid ah waxa kamid ah wasiirada Soomaaliya oo aan rabin hadda magacyadooda sabab maartay darteed oo jira inaan magacyadooda halkan ka carbaabin wasiiro saameyn kula dowladdan ama xukuumadda Xasan Cali Khayre ayaa wixii hanti fara badan oo badan ku leeyihiin Nairobi hantidaas ummadda Soomaaliya lama wadaagin malaayiin dollar ayaa ku baxday illa wadaagto malaha uqsum billahi hadii ay ka xishoonayaan ka hor in Kenya ay soo bandhigto hantidaas waaba lagu waabsadaa dadka waxaa intee laayay dadka shacabka iska gadgadaaleeray dowlad kasta meeshay ka lidato waa la yaqaanaa farmaajo waxa la ogaaday Khayre inay shacabka iska gadgadaan oo been u sheegaan shacabka lagu ceebay kara lid si shacabka marka ceeb ay shacabka inay ku ceebaan dartood wax walbay u dhiiboyaan kuwan war kuwan wax walbay u dhiiboyaan maxkamadii waa tana dadka yar hada taageersan ayaga maxay cawd ku hadlayeen markay maxkamadda Soomaaliya ku leeyihiin madaxweynaha ku qarsoon war madaxweynaha hadii intuu bulshada Soomaaliya hor istaago oo yiraa ummad yahay aan madaxweynaha u ahay badda Soomaaliya heshiiska maxkamadda Hague waxay inta soo saaray ka horta Kenya wada hadal la galina sanad ka dib waxaan noqoto 5 sano kadib waxaan noqoto ceeb ma aha waa hoggaan madaxtinimo iyo hadal yaqaan madaxtinimo dadku hadal deeqay u baahay sida Xasan Sheikh uu ka dhawaajiyay laakiin illa isqarqariyo saxaafadda laga ordo illa xildhibaanada Soomaaliya ayaa saxaafadda loo diiday laakiin waxa rabaa inaan su'aal weydiiyo xildhibaanada Soomaaliya ee hal jiray mooshiga keeni jiray ee haqaaya Soomaaliya loo sameeyay loo unkay ee loo yagleelay in Soomaaliya ay ilaaliyaan sharciyada ilaaliyaan war xildhibaanadii Soomaaliyeed ma dhihi karnaa xildhibaan dam ma jiro nimankan badda eeganaayo oo dekadii eeganaayo oo qalbi dhagax eeganaayo oo meel walba eeganaayo maxay ka samaysan yihiin haddii fiiri maanta oo kale waa markii xildhibaan Soomaali loo baahnaa waaye xildhibaanadii waxay u kala qaybsameen haddaan idin sheegaa dhowr farqay u qaybsameen haddaan maqli jirtay dhowr farqaa loo kala baxay diimaha xildhibaanadii waxay u kala baxeen dhowr farqa waxay aaminsan yihiin wasiir saaxiibkay ah ayaa xukuumadda ku jiro farqa waxay aaminsan yihiin annaga wasiiraha mooshin ma keenayno farqa waxay aaminsan yihiin mooshin haddaa keen lacagan qaadanayna warku waa isku dhamaay wax ummadda Soomaaliyeed ayatiinkeeda ka hadlay wax ummadda Soomaaliyeed badeeda ka hadlay ma jirto wax caradeeda ka hadlay ma jirto wax kala jecel ma jirto xildhibaanadii dumarkana waa isku kullay maarata farxiyi mega ku iska wada marsadaan kuwii ragga ahaa qaar wasiirada laga dhigtay qaarna caloosha loo buuxiyay marka xildhibaan ayaa Soomaaliya u taagana ma jiro ra'iisul wasaare Soomaaliyeed oo ayaa Soomaaliya u taagana ma jiro madaxweyne Soomaaliyeed oo maanta Soomaaliya difaacayna ma jiro waa kaasa badina waa ku deysay doorasha soo socota xilliga lagu aadiyay doorasha soo socota waxa u jeeday nin dheeraad dab casar maanta intuu leef soo galay qabiil iska caynaayo
hawiye waa baduu dhaca hawiye saanu yeelay hawiye saanu galay hawiye waa wax mind game ah dabcasow anaga waxaana laga keenay mind game kan anaga bilawnay waa aniga kaliya daawada ugu fahmana adiga waaye marka waxaan rabaa filinka hadda adiga waa sheekaysan rag waaweyn waxaa la yidhi waa sheekaysan saan ku sheekaysan haddaa fahamtay filinkan iska daa waa ku daalaysaa cid kula qabto ma laha baddaan qodob doodaa jira cawada muhiimadda usoo galna taas waaye inaan halkan ku casuumo inta qof xeeleeraha ku ah sida aragtida shacabka u wadaagi karaan weliba dadka nabad iyo nolol taageersan ayaan laba qof siin lahaa inaad ka hadashid aragtidaada ku saabsan baddan khiyaanada qaranka loogu dhacay muhiimaddu waa inaan marna laga waaban waxa ka socda Soomaaliya ee saxaafadda laga ordaayo ee laga dhuumanayo bahda warbaahinta ee dadka Soomaaliyeed beenta loo sheegayo loo dhal cadeynayo halkan waxaan u joognaa for my life inaan ka hadalno runta oo xanuujino taasaa muhiimadeena tahay taasaan halkan usoo taagannahay una taagnaan doonaa